الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم halka naga socotaan waa webka caalamiga ah ee waxsan sheegnays magaalada Oslo iyo garoonka Folaringa ee ku yaala magaalada Oslo halka waxa maanta ku kulmaya sida aad aragtaan oo hortaagan oo gudoomiyaha jaaliyadda reer Somaliland ee dalka Norway Ali Saleeman iyo gudoomiyaha ku-xigeenka Khadar oo dhinac taagan waxay qabteen ay qaban qaabiyeen koob ay ugu tala galeen ciyaaraha gobolada Somaliland halka waxa ay isugu keeneen 8 gobol oo 8 kooxood oo koox waliba ay u ciyaarayso gobol sida Maroodi Jeex Hawd gobolka Togdheer Saaxil Awdal Sanaag Sool dhamaanba gobolada reer Somaliland 8 gobol bay isugu keeneen hadaba waxaan su'aal weydiinayaa ujeedada ay ka leeyihiin koobkan ay qabteen maanta gudoomiye Ali Saleeman ku soo dhawow webka caalamiga wax sheegnays waan dhawahay Sadiq haddaan kaaga warramo koobkan aan qabanaalkan ku qabanay waxaan ugu magac darnay koobkii gobolada Somaliland oo runtii bilaaman lahaa maanta oo dib loo dhigay dalkii waa koob weeyaan aan ugu talagalay 8 gobol ee aad magacyadooda halkan ku sheegtay koobkaas oo bilaabmay maanta ka furmay magaalada Oslo waxa wada aragtaa sida wanaagsan u socdana imika ciyaarta ka bilaabmaysa waxa weeye gobolka Togdheer iyo Hawd baa ku ciyaaraya markaa runtii waxaan u rajaynaynaa inuu koobkaasi si wacan u dhamaado insha Allah ujeedada aan u qabatay waxa weeyaan dhiirigelin dhalinyarada waxaan hadda la siinayaa kelmadiisa gudoomiyaha ku-xigeenka Khadar jaaliyadda reer Somaliland koobka waxa loo qabtay inuu matalo koobkii gobolada ee Somaliland dhalinyarada ciyaaraysana reer Somaliland iyo reer Soomaaliya iyo wadamo kale oo ka yimaadeen marka koobku luseedaba dhiirigelin iyo inuu noqdo dhalinyarada iyo meelaha isugu yimaadaan oo ay ku kala faa'iideystaan ciyaartooyda ka soo baxo marka si fiican u dhaco marka ilaa hadda si fiican buu socdaa si fiican uu qabsado insha Allah aad iyo aad bad gudoomiyaha Khadar gudoomiyaha ku-xigeenka jaaliyadda reer Somaliland ee Norway Khadar aad iyo aad baad u mahadsan tahay hadda sida aad aragtaan hadda waxaan ku sugan lahay waa garoonkii sida ay sheegeen waxa wada ciyaaraya laba kooxood oo ah Hawd iyo gobolka Togdheer waxa weeyaan halka waxay hortaagan labadii coach ee kala watay Ahmed iyo Mawlid waxa weeyaan waxaan idinsiinayaa kelmadihiina ka warrama kooxana kala wadatan adigu waxa tahay Mawlid anu Hawd baa wata team aad u dhisma wata ciyaar yaqaana ciyaartooda si fiican u ciyaaray inkastoo team aad u adag laga soo horjeestay gool iyo gool ku dhamaatay laakiin waxaan rajaynayaa tan badan aad baad mahadsan tahay coach Mawlid oo watay kooxda Hawd ama gobolka Hawd Ahmed Saleeman oo wata gobolka Togdheer السلام عليكم ورين والسلام يا ورقيسك iyo Sidiq oo Farax waanu mahad celinayaa tababaraha weyn la ciyaarayay kooxdan Hawd oo koox aad iyo aad u shidana oo wanaagsan kooxdan Togdheer wato waa koox loo yaqaano ciyaar wanaaga koox aad u adag runtii ciyaarteedii horena badisay laba gool baan ku badinay kooxda la yiraahdo Saaxil imkana waa ciyaarteedii labaad guul baan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa natiijo wanaagsan aad iyo aad baad u mahadsan tahay Ahmed Saleeman oo ah coachka wata gobolka Togdheer kooxda u ciyaaraysa gobolka Togdheer ee halkan ku sugan halka nagala socotaana waa webka caalamiga ah waxsan sheegnays Cawil waxaad ka coach ku-xigeenkii waan hay شيخ أحمد محافل إنسان عاولوا قولي إلهي هدي كقولي أيون دلنا هيدا ما نتيمبا سلا دركتان هالك واحد كم مقضى لأن يرضي عياري سي متان أو كم ذا لأن يرضوا عياري سهل كاسي تيم كهود أي هالك نورتي التاجل متان محط فليس ما أنتينا دين قولي سنة كوحدنا هود صدق اللي بعضه في ليسان إنه كوبادين دونتان هدي لا يكدقوا عاد بميون يدون أكسنتين وحن يدلنا نقول جوليستا الواحد نقول صعد هو وبك عالمي جاه وربعين توحسن شيء نيوز هي مقالة أصله هالكم وحكوا سجن كوحيه كل الدونا يسد يارين يي عيارها الله قلت طلع علي ترتن كعيارها قبل هذا Somaliland وكوح ولا بقى عيار يصو قبل سيديان صو شغلي هذا هو هالكم أنفليا حدوتو
inaad ka bogan doontaan biidnillaahi kariim natiijada iyo finalka ciyaartani ay ku soo dhammaato iyadoo ay qabanqaabisay koobkan jaaliyadda reer somalilan ee dalkani norway waa warbaahinta waxsan sheeg news oo idin leh to be continue insha allah waxaynu sugnaabo waa finalkii iyo koobka cidda la carooda caawa haddii ilaaha awoodda lihi uu ogolaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi